Bismillahir Rahmanir Rahim. Kulanti habboon saaxiibayaal, halkan waa Arabsiin News. Waxaad ku soo dhawaataan qodobada ugu doorka roon ee wararkan idinheena waxaa ka mid ah warbixin cinwaan looga dhigay xasuuqii iyo mar kale maya oo ka hadlaysa inay dib u midoobaan Soomaaliya iyo Somaliland. wasaaradda waxbarashada maamulka Galmudug oo soo bandhigtay in sanadkii labaad oo xiriir ah ay qaadi doonaan imtixaanaadka fasalka 8aad iyo taliska ciidanka booliiska Soomaaliya oo shaaciyay in gabi ahaanba la joojiyay bixinta warqadaha dambi la'aanta ee CID-da. intaas waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon wararkan idinayna saaxiibayaal. marka hore subscribe-ka ayaan idinka codsanaynaa inaad noo saartaan oo aad ka mid noqotaan saaxiibada ku xiran wararkeena. balse markan qadar adeeg bulshada ogtahay macmiil adeegyada cusub ee ku soo kordhisay shirkadda hoggaanka waa shirkadaha socdaalka geyiga ee bariga galbeed sanadkani cusub ee 2020 shirkadda bariga galbeed oo ay horeyba shacabka ku dhaqan geyiga uga barteen safar raaxa leh, adeeg hufan iyo sidoo kale ammaano lagu kalsoon yahay. marka la soo laabasho wacan saaxiibayaal aynu ku bilaabno warkeena caawa. waxaan idiin soo gudbinaynaa warbixin cinwaan looga dhigay xasuuqii iyo mar kale maya, waxaana warbixintan qoray Cabdiraxmaan Cadami. waxa uuna kaga hadlayaa in ay dib u midoobaan Soomaaliya iyo Somaliland. maalmahan waxaa warbaahinta iyo baraha bulshada lagu qaadaa dhigaya aragtida kooxda London boqortooyada Ingiriiska kaga dhawaaqday inay ka shaqeyn doonaan midnimada Soomaaliya oo halku-dhigoodu uu yahay midnimo iyo mar kale. lama yaqaano xubnaha kooxdan, waxaase horboodaya nin lagu magacaabo Maxamed Baashi Xaaji Xasan oo sheegtay in uu yahay xidhiidhiyaha kooxda. waraysiyo uu siiyay qaar ka mid ah warbaahinta waxa uu ku doodayaa in weligiiba kasoo horjeeday gooni-sutaagga Jamhuuriyadda Somaliland, hadalkaas oo aan u maleynayo in aanu waxba ka jirin ee ay tahay geed cusub oo uu hadda soo baxay, sababtoo ah 29 sannadood ee Somaliland jirtay maalinna kama maqal in uu isagu aaminsan yahay Soomaali weyn, balse waxa uu ka mid ahaa dadkii ugu firfircoonaa sida weyn u taageeri jiray madaxweynayaashii iyo xukuumadihii loo doortay inay xoojiyaan himilada ummadda oo ah jiritaanka iyo madax-banaanida Somaliland. mar kale mabda ahaan in Somaliland kasoo horjeedo wuxuu marqaati ka dhigtay dhowr buug oo uu qoray. waxaan aqriyay 2 ka mid ah buugaagta uu xusay, dad kalena waa ay aqriyeen sida aan filayo, ha yeeshee kuma aanan arag weedh kaliya oo tibaaxaysa xiisaha iyo aragtida uu u hayo midnimada Soomaaliya. Maxamed Baashi wuxuu sheegay in madaxdii SNM aanay raali ka ahayn gooni-sutaagga Somaliland iyo go-aankii lagaga dhawaaqay Burco 1991 sidaasi oo ay tahay, laakiin uu ahaa go-aan lagu degdegay iyo caadifad dadweyne oo la soo abaabulay. tabliiqa cusub ee midnimada Soomaali weyn waxa aan ku baraarujinayaa masiirka ummaddu kuma xidhna dhowr siyaasi oo danaystayaal ah, balse go-aanku waxaa iska leh shacbiga iyo madaxda loo doortay in ay hogaamiyaan rabitaankooda. sidaa daraaddeed waxa ay cod midaysan ku yidhaahdeen xasuuqii iyo mar kale maya. haddaba waxa aan isweydiiyey mujaahidka maxaa bedelay mowqifkiisa iyo taageeradii uu u hayn jiray madax-banaanida Jamhuuriyadda Somaliland. qofku haddii uu aaminsan yahay damciisa iyo waxa calooshiisa galay, waxa lala yaabo ma ahan in maalinba lagu arko midab iyo mowqif hor leh. qofku wuxuu suluugi karaa arrimaha qaarkood sida ay u socdaan, wuxuuse dhaliili karaa, laakiin kama weecan kara haddii uu si dhab ah mabdiciisu uu aaminsan yahay. ninkan ka ridoobay qadiyadda Somaliland 10 sannadood ee ugu dambeeyay waxa uu quudareynayay in mansab uu ka helo xukuumadii Somaliland, wuxuuse uu rumaysan yahay in isagu uu kaga habboonaa rag uu isku bidayay oo xilal waaweyn lagu taxay. markii uu ku hungoobay wuxuu arkay in xukuumadda Farmaajo baahi weyn ay u qabto dadka Somaliland kasoo jeeda oo midnimada la xoojiya. waxaa sii hungurigeliyay markii uu arkay inamo iyo hablo yaryar oo sidii madaxda Farmaajo ugu qaabilayo madaxtooyada.
si kastaba haatee ayuu qoraaga kusoo koobay qoraalkiisa. Maxamedow, adiga hortaada xamar waxaa tagay rag miisaankooda leh iyo siyaasiin rugcada ah oo kaa dagaal iyo aflagaado badnaa oo haddana waxba yeeli kari waaye Somaliland oo xitaa aan sameyn ku yeelan. hase ahaatee markay soo hungoobeen cafis kadib iyagoo aan bulshada sharaf ku lahayn dib ugu soo laabtay dalkooda hooyo. waxa uu kusoo gabagabeeyay qoraaga warbixintan geel weedaartay waa geeda la-aan. odhaahda kalena waxa uu kusoo koobay saca faarso tagay 3 maalinta uu qado sandulah ayuu kusoo noqon. Abiy iyo Uhuru waxa ay u qaateen in fikradii Soomaali weyn la dhimatay burburkii Soomaaliya. waxaa warbixintan qoray oo aynu kasoo xignay Cabdiraxmaan Cadami. taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeedna waxa ay shaaciyeen in gabi ahaanba la joojiyay bixinta warqadaha dambi la'aanta ah ee CID-da. taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa shaaciyay in muddo 15 maalmood la xirayo waaxda faraha ee xarunta hay'adda dambi baarista ee booliiska ee CID-da. taliye ku-xigeenka ciidanka booliiska Generaal Zakiya Xuseen oo fariin kooban la wadaagtay bulshada ayaa shaacisay in iyadoo la raacayo awaamiirta ay bixiyeen madaxda dowladda ee la xiriira ka hortagista faafidda cudurka coronavirus laga bilaabo khamiista maalinta beri ah la joojin doono shaqada waaxda faraha ee CID-da. qoraalka ay barteeda Facebook kusoo qortay Generaal Zakiya ayaa u qornaa iyadoo la raacayo awaamiirta guud ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ee ku aadan taxadarka faafinta cudurka coronavirus. waxaa shacbiga Soomaaliyeed ku wargelinaynaa in laga bilaabo beri taariikhduna ay ku beegan tahay 19 bisha 3 2020 aan xirnay waaxda faraha ee CID-da oo bixisa warqadaha dambi la'aanta muddo 15 cisho ah ayay tiri Zakiya. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo xalay saqdi dhexe warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa shaaciyay go'aan ka soo baxay dowladda kaas oo la xiriiray in 15 maalmood la fasaxo guud ahaan goobaha waxbarashada ee dalka. ugu dambeyn wasaaradda waxbarashada ee dowlad goboleedka Galmudugna waxay shaacisay in sanadkii labaad oo xiriir ah ay qaadi doonto imtixaanka fasalka 8aad. wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka Galmudug ayaa shaacisay xilliga loo fariisan doono imtixaanaadka dugsiyada dhexe ee deegaanada dowlad goboleedka Galmudug. wasaaraddu waxa ay sheegtay in imtixaanka loo fariisan doono 30 bisha 5aad. sidaasi waxaa warbaahinta u sheegay wasiirka waxbarashada dowlad goboleedka Galmudug Mudane Axmed Deeq Cabdi Maxamed. sidoo kale wasiirku waxa uu shaaca ka qaaday in imtixaanaadkaasi ay u fariisan doonaan ku dhawaad 5,000 oo arday kuwaasi oo haatan wax ka barta dugsiyada dhexe ee deegaanada dowlad goboleedka Galmudug. imtixaanaadkan ayaa laga qaadi doonaa ilaa 25 xarumood oo ay diyaarisay wasaaradda waxbarashadu, waxayna shaacisay in la diiwaan geliyay dhammaanba ardayda u fariisanaysa imtixaanaadkaasi kuwaasi oo ku kala sugan 12 magaalo oo ka kooban guud ahaanba dhulka uu ka arrimiyo dowlad goboleedka Galmudug. wasiirku waxa kale oo uu sheegay in wasaaraddu ay magacowday guddi loo xilsaaray korjoogteynta howlaha imtixaanaadka ee muddadaasi soconaya. waxaan rabaa halkan inaan ka cilaamiyo imtixaanka fasalka 8aad ardayda reer Galmudug ee way qaadayso wasaaradda waxbarashada sanadkii labaad. waxaan rabaa in halkan ka cilaamiyo haddii Ilaah yiraahdo imtixaankani wasaaradda waxbarashada waxay qaadaysaa sanadkii labaad. waana runtii juhdi ay wasaaradda waxbarashadu gelisay in imtixaankaas la qaado. waxyaalaha sanadkan aan guusha leh waxa weeyaan in yacni wasaaradda waxbarashadu ay si dhaba u dhaqan gelisay manhajkii ay ardadeenu ay dhiganayaan muxuu ahaa hal manhaj ama hal bug ay wax ka dhiganayaan, taasoo suurto gelinayso in wasaaradda waxbarashadu ay qaado imtixaan dhammaystiran oo 100% mas'uuliyaddeeda ay qaadatay wasaaradda waxbarashada Galmudug oo ardadeenu laga qaadayo imtixaan isku mid ah oo centralized ah. waana guul runtii usoo hoyatay bahda waxbarashada ee reer Galmudug iyo dowlad goboleedka Galmudug. waxbarashada Galmudug runtii waxa weeyaan waxaan dhihi karnaa waxa laf dhabar u ah imtixaankaas oo muujinayo ama qiimeynayo meesha maanta ay waxbarashadeenu ay marayso. waxaan rabaa halkan inaan maartay aan dardaaran uga soo jeediyo ardayda reer Galmudug
iyo waalidiinta iyo dugsiyada waxbarashada galmudug inay u diyaar garoobaan imtixaanka fasalka 8 ardaydu ay galayaan haddii ilaahay yiraahdo sanadkan oo wasaaradda waxbarashada ay qaadayso imtixaankaas oo dhici doono 30 bisha May ee sanadkan annagoo markaas fiirina duruufaha jira muxuu ahaa haday noqoto imtixaankii fasalka 12aad ee dugsiga sare xilligii Ramadaanka ku soo aadan muxuu ahaa bisha April dhamaadkeeda iyo muxuu ahaa in imtixaano kale ay jiraan sida imtixaanka naqliga oo kale waxaan ku astaynay inuu dhaco imtixaankaas haddii ilaahay yiraahdo 30 bisha muxuu ahaa shanaad ee sanadan runtii waxyaalaha farxadda leh waxa weeyaan in muxuu ahaa reer galmudug maanta u diyaarsan yihiin imtixaankaas dhamaantood naga qayb qaataan maadaama uu yahay mas'uuliyad aad iyo aad u weyn madaxda sare ee muxuu ahaa galmudug sida madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku waxay noo ballan qaadeen inay mahid iyo hoob nala kor taagan yihiin si muxuu ahaa imtixaankaas uu u dhaco si muxuu ahaa taxadar leh oo sharaf leh imtixaankaas ugu dhaco haddii ilaahay yiraahdo markii aad ka daawanaysaan rabsiinii saaxiibayaal waa inaga intaad ku mahadsantihiin daawashada warkan midkiisa xigan intaan dib u kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo